taa marka laga soo gudbo buugga la yiraahdo buugta aan u malaynayo meesha taal inuu ugu xajmi weyn yahay waa buugga waa u jeedaan baan u malaynaya buugga sawir baa ogada ka saaran sawirka ogada ka saaran waa humaag humaag ayaa yaqaan humaag ma taqaan ma armaydaan wada aqoon wixii aan aqoon waa u sheegaya humaag waa wax ku muuqda haddana aada kala cadayn karin wuxuu yahay ma nin baa mise waa naag humaag baa la dhaha dadka inta badan waxa humaag ah oo ka fog hadday cadceed jirto way himbiriirsadaan indhaha intay soo yaryarayaan bay cadceedda iska xijiyaan gacanta himbiriirs baa la dhahaa saasay aragtida kusoo dhaweystaan si bal inay gartaan laakiin humaag waa shay aan cadayn laakiin kuu muuqda wuxuu yahay inaadan sheegi karin humaagga halkaa ka muuqda wuxuu ka tarjumayaa wax ka weyn intuu la muuqdo bahalaha aad arkaysaan oo afarta ah iyo nimanka duud xamaalada la dhaho oo dhex socda oo qalabka u sida kolley hashaa meesha ka muuqata oo nirigta wadata oo calankii soomaaliya dhinaca kaga buufsan yahay ayay ka tarjumayaan iyaguna ku socdaan heegana ku yihiin nimankaa hadda dhinacyada ka taagan waxaa la dhahaa daljiro buuggu wuxuu ku bilaabanayaa dooddaas wuu ku dhammaanayaa bahalaha geedka hoostiisa hoganaya oo kooxda ah oo ninka tuurta weyne uu u horeeyo waxay daba taagan yihiin oo dabada ka riixayaanay waraabayaasha wayna gelayaan dagaalka buugga warkaad akhridaa ogaanaysaa xagga dambe ka soo galayaan waxaa ku jira 13 gabay oo isu tirinayaan baa ku jira 2 gabay oo lifaaqa baa raacsan oo aan jecelahay inaan mid waliba idinla wadaago kamida oo iyagu ka hadlaya dhibaatada hoggaanka iyo hantida waxa dhibkay keento haddaan la maarayn waxa loo helay buuggaasu waa Politico Sarbeeba ujeedada loo qoray iyo hamiga laga leeyahay qaybta gabagabada ka helaysaan wuxuu leeyahay chapterka ugu dambeeya 10ka ugu dambeeya gabagaba gooya gabagabadii buugga wax kale ka hadli mayso gabagabadu hadafka loo qoray kaliya baa lagu sharaxaya waxaad ogaanaysaa adoo dawaqsan wixii aad soo akhriday la yaaban meesha u socdaan marka gabagabada akhrido sawir baa ku soo baxaya wal ku muuqan humaagii baa nin iyo naag wixii ku kala cadaanay buugga kanu waa wadani guud ahaan wuxuu xarbaarsan yahay sarbeeb fara badan oo haddaad akhridaan aan u malaynayo inuu dad badan dhaxal u noqonayo kelmado badan oo ku jira oo ay qaybtood mahmaha isu bedelayaan buuggu maha hadal waa maanso si u dhan yahay laakiin maansadii baa laba ahoo maansana waa mid naaxiyad leh sida gabayada iyo heesaha iyo loo sameeyo cod lagu qaado midna waa qaab sida jacburkii u dhacaya laakiin ereyo iska mida oo isku xaraf ka bilowdo bay ku dhacayaan buuggan buugu eg baa soo socda laakiin ka duwan oo ciwaankiisa la dhoosagana bahalaha ku sawiran iscunaayo oogada laakiin gudaha waxa ku jira sawirro fara badan magaalooyin burburay oo bahala isku haystaan oo dhareerka daadinayaan oo lafa burursanayaan baad ku arki doontaan iyo dad lafahood oo tuunsan buugga kale insha Allah inaan soo daabacnana waa jecelnahay waa kullayba nin oday oo aanu malaynayo inuu hadda meesha joogin kale baa markii ugu dambeysay gacanta ku hayay waa daabaceena buuggaasuna buug xigmad badan xambaarsan weeyaan hordhiciisa cutubka ugu horeeyana dood aniyo nafteeda dhex martay ayuu ka hadlayaa waaqaca Soomaaliya aanu isku xumaanay markii dambe to meel xun naga gaartay waa ka soddon bej waa ka badan tahay inta dooda socotay intay qaadatay waana su'aal iyo jawaab aanu isu dhigano labada yadu laakiin aan khayr kala qaadin dabadeedna la xana dhex galay cadow wayeegayo aan xabiibka iyo moodnay anagu waan waxba kala ogeyn ma garatay laakiin yadu way ogeyd anigu ma ogeyn way khiyaamaysay aduu waad arki doontaan insha Allah qaybta dambeena niman hoogayaal la yiraahdo ka hadlaya sideeda waad arki doontaan sifahooda lagana yaabo dad badan inagana kamid inay noqdaan sifaha qaataan lagana rabo inay saxaan haday sifaha yeeshaan insha Allah kaas waqtigu soo baxaynu gaarina buugga kan in la akhriyo oo wax laga fahmo oo wadaniyada waxay tahay la ogaado wax wadanka ka jirana la ogaado baan ilaahay ku rajaynaynaa hadda faala ka galimaayo gudihiisa ah inaad akhridaan baa muhiima naxwahana akhristaan guriga sheeka xariirka buugga ah
waxaan idinka codsanayaa in caruurta dhaqanka la baro buugga kan uu dhaqan buu xambaarsan yahay awr la rarayo nin soo dahdii xaday baa ku jira oo ceeb ku dhacday oo ku qabatay isagoo caana ka xadaaya bay hoogo dhan baa ku jira nin masaajid intuu shaydaan u yimi nin isaga dhigay uu god ku tiriday baa isna ku jira adu waa buug qosol miiran oo aad caruurtuna ku farxi doonto meesha waa ka baxaysa